hadal aad dhawaan aad jeedisay dad badan oo dhageystay ayaa ka kala bixiyay aragtiyo kala duwan marka hoggaanka xisbiga wadani qaab nuucee buu dhisan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim hoggaanka xisbiga siduu u dhisan yahay horta waxa tilmaamaya xeerka xisbiga hoggaanka xisbigu waxa jira laba xil ama saddex xil oo kaga duwan yahay hoggaanada labada xisbiye kale mid waxa weeye aniga iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba waxaanu ka midnahay hoggaanka xisbiga talabaadna waxa weeye structure-ka waxa qeexaya xeerka xisbiga waxa ugu hoggaanka dee madax ka ah guddoomiyaha xisbiga waxaa jira xil aan labada xisbi kale ku jirin oo ah guddoomiyaha ku-meelgaadhka oo xisbiga wadani leeyahay guddoomiyaha ku-meelgaadhka ayaa ku xiga guddoomiyaha xisbiga oo ah xildhibaan cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirde xilka labaad ee labada xisbi aanay lahayn waxaa ka mid ah isna hoggaamiyaha xisbiga oo ku xigaya guddoomiyaha ku-meelgaadhka ah dabeedna waxaa ku xigaya 5 guddoomiye ku-xigeen oo xisbigu leeyahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ilaa guddoomiye ku-xigeenka 5aad guddoomiye ku-xigeenka koowaad waa cabdirasaaq khaliif guddoomiye ku-xigeenka labaadna waa saleebaan ducaale guddoomiye ku-xigeenka saddexaad waa kayse cali geedi doctor kayse cali geedi guddoomiye ku-xigeenka afraad waa cabdi reygal beegsi guddoomiye ku-xigeenka 5aadna waa milgo maxamed sambaloshe xubno kale oo hoggaanka ku jira way ka mid yihiin doctor alabari iyo xildhibaan cabdiraxmaan good ayaa iyaguna ka mid iyo xubno kaloo fara badan baa iyaguna hoggaanka ka mid ah